Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadda inta badan tahay dadka soomka jecel, soomka nooc orab ha noqdo, intermittent fastingka ama soomka caadiga aan soono ee 12 saacadood ama waxaan loo yaqaano omadka 1 meal a day. Qof maalinkii oo dhan aan waxba cuneynin, qaxda caada sidoo kale shaah magaalada ka cuncuna, laakiin habeenkii kaliya guriga markuu yimaado cunto fiican cuna. Laakiin marka uu miisaanka ku istaago uu naftiisa ka dhaadhiciyo alla ilaahay waxba ma cuntida isfiiri arka inuusan waxba bedelaynin. Ama hadaaba tahayba dadka inta badan jirku oo dhan ka dhamaado, laakiin calooshu ay tahay meesha uusan dhaqaajin karin. Lix Khalad waxaan ku hayaa maanta soonka aad soonto aad ku dhex samayso. Haddii aad fix garaysidna 30 maalmood gudaheeda aad natiijo ku arkayso. Anigu inta badan waqtiga waxa idinkugu cayimaa maadaama aan macallin ahay. Almost hadda waqtigan aan kula hadlayo 50 ardaya ila joogto oo Ilaahay la ogyahay. Waxaan garanaa 30 biri waxa isbedeli karo. Waxaan garanaa 15 cisho waxa isbedeli karo. Taladan aan maanta ku siinayna waliba 30 biri ma 15 maalmood waxa dareemaysaa in calooshaada ay gadaal u noqonayso. Badankiin willpower la'aan idin ma hayso. Fiiri, motivation uma baahnidin in la idin dhiirigeliyo. Matid qof lazy ah oo wixii uu bilaaw u dhameystiray, laakiin waxa la dhaho metabolic stress yaan dhaxda waalanayna. Dhaqanka Soomaaliyeed iyo cuntada Soomaaliyeedna 80% ayada ka hortaagan 2026 mar kale inaad goolka aad ka lahayd jirkaaga aad ka gaarto, miisaankan aad iska rido. Hal midna meel ku qor. Standard fitness advice-ka inta badan TV-gana laga siiyo. Anigu wax shaqo kuma lihin. gaar ahaan marka Soomaali nahay li'annahu cuntadeena ma ogolaanayso. Hadda tusaale ku siina qof Soomaali maanta hadda la fariisato tiraawtiiri miisaanka muxuu kaaga dhici la'ayahay, calooshaada maxay isku bedelaado uu ku sheega. Wuxuu leeyahay shaah badan caba, bariis iyo baasti canjeero waa cuntadeena wax kala maahan, sambuuska iyo waxyaabahan saliid lagu dubo. Yes, qof walba wuu yaqaanaa dhibaatada meesha ka taagantaa, laakiin dhibka jira wuxuu yahay dhaqankeena iyo cuntooyinkan sidee la isku waafajin karaa. Haddaan ku bilaabo marka soonku wuu kala duwan yahay. Midna waa midka caadiga soontaan ee 12 saacadood ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu adoonsaday. Hadduu noqdo mid sunnah 2 maalin isbuuc aad ka geliso, hadduu noqdo kan 3 biri bisha halka mar la soomo, iyo hadduu noqdo kan hadda naga soo dhamaaday Ilaahay naga aqbalay Ramadaanka ahaa. Laakiin ogow mar walbo qofku marka uu afka furaayo tusaale ku siina hadaa halay sideedii habeenimo cuntada aad joojisay oo maalinka kaleete 1 ama kowga aad cunto cuni rabto taa waxay tusinaysaa in 16 saacadood jirkaaga uu soo soomnaa. 16 saacadood jirkaaga wuxuu ku jiray marxalad uu faadka guwaayay, marxalad uu insulin sensitivity ahaa. mar walbo insulin sensitivity jirku ku jirana waa idin sheegay waa marxalad ugu fiican oo jirkaaga faadka ugu badan uu gubayo. Ka waran marka xalay marka aad seexatay ilaa iyo 1 ay kowga duhurnimo inuu jirkaaga ugu yaraan 500 ilaa 350 calories uu soo gubaayay. Laakiin hadda markii qadada la gaaray wixii dhan aad ka dhigtay hal bacaad lagu lisay. Tusaale ruxsina haddii ka waran saxankaagu aad bariis soo tuurto, dhaqankeena Soomaalida kaliya la ka fiiri uusan wax khudaar lahayn, borotiinkina aad difaac ka gasho. Taa waxay keenaysaa in wixii aad soo sameynayso dhan ay noqdaan hal bacaad lagu lisay. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso koojo maxaan cunaa. Video dhamaadkiisaan kugu sheegaa, waliba talo waxaan ku siin doonaa insha Allah ta'ala. Hadda kadib aad isticmaali doontid cunto aad la dhigi doonto waxa soo dhan aad iga taqaana. Laakiin video-ga dhameeso like na saar insha Allah ta'ala taasan ka codsanaa. Halka fadhi marka saxanka waxa laga yaabaa inuu 2500 oo calories ku fariisto qofka Soomaaliga ah asoo 16 saacadood soo soomnaa. Calorieskaas fiiri galaaska biyaha ah ee aad sokorta dhex dhigto ka iman karaa. Wuxuu ka iman karaa koobka shaaha ah ee aad dhaxdo maskaxdan ku furaa. Wuxuu ka iman karaa qaxwada ku hayso. Ogow wax maskax lagu furaayo ma jira, inta badan waxa nagu ciyaarayo oo kor iyo hoos noo wado waa dopamine-keena. Dopamine-kaasna haddaad control weyso aamin noloshaada wax aad control karaysid ma lahan. Haddaad rabin marka inuu jirkaaga cunto walbo soo gasha intuu qaado khashinka uusan ku darin, khashinku de waa adipose cellskaaga, waa unuga u taagan inuu faadka ku keed gareeyo. Haddaad jirkaaga inuu arinka ka badbaado marka aad afka waxa ku furaysid waxa ha u cunin maanta oo dhan gaajeysneeda waxa wax cuntaa cuntadan maxay ka bedeli kartaa. bariiska cun laakiin xoogaa yar ka cun control, baastada cun xoogaa yar control ka cun. Khudaar saxankaaga ha lahaato. Dadka qaar waxaa jiro khudaartu ay dhibto, laakiin khudaar marka ku leeyahay kaliya maana ansalaato cagaaran ina isku dilaysid. Spinach sameeso, cabbage sameeso,
wax una vegetable ah saxankaaga ha laga helo. Inta aad soonka ku guda jirto marka tusaale ahaan waad soo kacday waxaad rabtaa kowga inaad cunto ka bilowdo. Iska ilaali inaad shaah sokor la cabto, iska ilaali inaad qaxwo sokor la cabto, iskana ilaali cabitaanadan aad u aragto just waa cabitaan inaad isticmaasho intaad soonkaas ku dhex jirto. Waan idiin sheegay haddii intermittent fastingku aadan ka bixi karaynin oo aad rabto intaad sooman tahay inaad maanta dhan wax firiq siiso, ha iswareerinine qado iyo quraac iyo casho iska cun noloshaada marxaladda caadiga ah gal miisaanka wuu ka dhacaa. Tusaale ku siinaa subaxii marka aad quraacato intaad soo kacdo 4 xabbo ukun ah 3 xabbo ukun ah aad disho wallahi aamin haddaad 2 koob oo qaxwo maalinkaas cabi jirtay koob waa safe garaysay li'anna calooshu way buuxdaa. Maskaxdaadana mid weligaa ku xisaabtan maskaxdu ma taqaano ma gaaja ku hayso mise waa haraadsan tahay. Inteena badan u fiirso gaaja xataa ma aan waxan haayee oonaan haayo adoo oon ku haayo yaad qaxwo ku dhufanaysaa adoo oon ku haayo yaad shaah ku dhufanaysaa. Taasna waxay keenaysaa mar walbo maskaxdaadu ay signal soo dirto adiguna wixii dopamine-kaaga aad ku qancinaysa inaad ku qanciso. Waa labo proteinkaaga xakabato cunooyinka kaleete. Fiiri haddiiba weight loss oo kugu soo dhaco haddiiba fat loss aad samaynaysa haddaa isbedel aad rabto inaad samayso waxa ugu horeeya ee aad xooga saaraysa proteinka noqdo hilib geel hilib ari hilib lo kalluun chicken haddaa rabto digiraha nooca aad jeceshahay saxankaaga protein fiican ha laga helo. Proteinka markaad xaqiijiso number 2 khudaarta ha laga helo. Khudaarta markaad xaqiijiso kadib marka waxa aad jeceshahay hadday bariis tahay hadday pasta tahay haddii canjeero tahay haddii muufo tahay haddaa awoodi kartidna cunooyinka kala dooro cunooyinka brownka ah top priority saar. Fiiri cunooyinka brownka top priority saar ama awoodda ugu badan saar markaa ku leeyahay macnaheedu ma ahan cunooyinka brownka ah inay cunooyinka cad ka fiican yihiin oo kaloriskooda uu ka yaryahay maya waxay kaga fiican yihiin kaliya fiberkooda kuwan xambaarsan yihiin weli qoloftii ay wataan. Qoloftana waxaad ogaataa waxa jirkaaga u baahan yahay waa waxa blood glucose-kaaga hoos u dhigayo waa waxa insulinkaaga stabilization ka dhigayo dejinayo inta badan bariiska brownka dadku ma jeclo. reason kan ana hadda ku sheegay Soomaalida cuntada si loo kariyo ma yaqaan wallahi billah 80% anagu cuntada si loo kariyo ma naqaano. Waxa keenaya inuu brownka bariiska ku soo fiiriyo oo aadan cunto marsiin karin kariskaadan fahansanin laakiin maalinka aad kariska fahanto bariis caadi dib ugu ma noqonaysa mar kaleete. 4 cusbada aamin cusbada anaga cuntada aan ku darsano waa high waxayna keenaysaa jirkaaga inuu biyo badan xambaaro. Weli aad ku aragtay soo inta dad soo kacdo miisaanka aad ku istaagtay 2 kiilo miisaanka uu kor u kacay dabcan waxa laga yaabaa habeenkaas inaad cunto cusbo tiro badan la aad cuntay ina maalinkii ka horeeyo cunto tiro badan cusbo la aad cunto cusbada hoos u dhig. Cusbada cuntadu dhadhanay u yeeshaa ma ku dhahayo cuntada spice la'aan ha noqoto bisbaas ku dar cusbo ku dar waxyaabahan caadiga aad ku darsano dhan ku darso laakiin qiyaas ku dar. Jirkaagu waxa wata mar walbo oo ay cusbadu ku badato signal waxa jira jirka iyo maskaxda ka dhaxeeyo waxa jirka lagu qasbaa biyo walbo gaar ahaan horta dadaan biyo cabaynin biyo walbo oo jirkaaga ku jiro waxa la isku maskaxdu waxay amar ku bixinaysaa in meel la isku kan waana sababta keenaysa habeenka markaad hurdo suuxi aad ka soo kacdo cunto cusbo lana aad cuntay adoo dibirsan oo inflammation tacbaan la suuxi aad hurdada ka soo kacayso cusbaha la isticmaalo cunto cusbo la'aan qof cuni karta ma laha. Inta badan dadka weight loss ka sameeyo cusbada waa laga wada celiyaa maya cusbada isticmaal laakiin aad u xakameey. 5 waxaan weekend reset la dhaho waxa arkaysaa qof isniin ilaa jimco serious laakiin sabti ahad wuxuu raba iska sameeyo. Aamin haddii aad rabto inay 1 kiilo ka dhacdo isbuuci waxa u baahan tahay markay ugu yartahay 3500 calories inaad ka tagto. Tusaale ku siinaa haddii ka waran isbuuci oo dhan calorie deficit aad ku jirto oo aad cuntadii aad kala yaraysay oo laakiin sabti ahada banaanka intaad aado 3500 ee calories aad lumisay aad dib u soo celiso waxaan cheat meal loo yaqaan. Cheat mealku ma xumo caruurtaada banaanka aad la soo baashaan aroos hadii lagaaga yeero hadhiin daayada ku jira hadii meel dabcan lagaa waco hadhiin anigu daayada ku jira waxaas waa cib fadhiyada dadka ay kugu yaranayaan ha tagin haddaad dhihaysa daayada ku jira laakiin maxaa la sameeyaa waa la isxakameeyaa waxa meesha yaala wax ka cun laakiin ha ku tarax tagin naftaadu xakamee. Fiiri qofku waa laga yaabaa inuu xumaato dareemo markuu intuu xaflad canugiisa ama familkiisa intuu kaaga yeero aad tagto oo cake lagu soo dhigo cake intaad saas u fiirsan maya anigu biyo cadaan caba daayada ku jira markaad tiraahdo qofka mar dambe ma ku yeeranayo
laakiin keegi marka lagu soo dhigo haddii aad jab yar ka qaadato nafta waa la xakameeyaa dopaminkaaga waa la xakameeyaa qofkaas dhibaato uma arkaayo mana kugu qasbay keegi inaad dhammaystirato laakiin sharafta waxay ku jirtaa inaad wax uun xalwada biskutka wax walba aad ka taabsanayso maxaan ka wadaa macquul maaha inaad isbuuc oo dhan aad noqoto sportsman athlete inaad noqoto ciyaartooy noqoto laakiin labada maalin week ugu dambeyso adduunka oo dhan aad isku qasto waxay keenaysaa inaad cycle xeyndaab aadan weligaa ka bixinin aad ku dhex jirto isbedelkaagana uu adkaado baashaal laakiin baashaalka naftarkiisa xakamee 6 markaa waxaan sleep sabotage ee dhahan firi hal mid arbaan ku sheeg 5 saacadood iyo 4 saacadood una habeenkii hordo maalinkiina aad natiijo rajayso natiijo mental iyo physical isku ah yani jir ahaan ina u diyaarsanaato maskax ahaan aad u diyaarsanaato shaqooyinka lagaaga fadhiyo aad ka soo baxdo jiimka aad tagto si fiican waxa uu qaado si fiican u exercise gareyso ma suurtagelayso waxa ogaataa gaariga kaliya ee meesha adigu rabto ku geyn kara si safe ah kaana soo celin kara waa adiga jirkaagana mentally ka number 1 ah physical ka number 2 soo gala haddii habeenkii hurdo la'aan ay kugu dhacdo marxalad jirkaaga wuxuu ku jiraa panic ah okay marxalad naxdin oo ku jira jirkaaga hurdado yaraata mar walba waxay isbaay ku samaysaa hormoonaadka gaajada sida ghrelin oo kaleete hormoonaadkaas haddii mar on noqdaana discipline waxba kaama caawinayo because ayaga ku controlayo dagaalna waxa ugu xun midka maskaxda aad la galaysid because maskaxdaada marna kama guuleysan kartid secretka marka aan ku soo gabagabeynaa videogan isku day inaad stresskaaga manage gareyn karto video ka hore waxaan ka soo hadlay marxalad dadku ay sameeyaan sida neefsashada sanka oo kaleete yes markaan videoyada sameynayna ama aan edit gareynayno ama dabcan qofka noo edit gareeyo oo noo edit gareynayo waxaa laga yaabaa qof meel fadhiyo oo labada farood saan isku dhahay wax meditation sameynaya inaad video ka dhex aragto anigu meditationka ma aaminsani diiniyana sax maahan laakiin hal mid aan ku fahansiyo fadhigan aan fadhiyo yaa inaan intaan fariisto stresskayga dejin karaa waa goorma hadda intaan indhaha isku qabsado isku day inaan neef ka qaado oo aan neeftaas soo celiyo aamin neefsashadaas waa number 1 waxyaabaha aad stresska ku manage gareyn karta adoo shaqadaada dhex fadhiisaa sameyn kartaa adoo habeenkii gurigaaga dhex joogaa sameyn kartaa subaxii waaga markuu ku bariyaa sameyn kartaa moogta horta soonka asaa stress ah laakiin waa stress wanaagsan laakiin gabar haddii stresskaas uu ku dheer yahay stresski shaqada stresski familka stresska biilalka guriga lagaa rabay jirkaaga wuxuu ku qasban yahay cortisol badan inuu soo saaro cortisolkana shaqadiisa ma taqaanaa cortisolka adoo ku ilaaliyaa waa askari adig ku ilaaliyo waa mar walba uu danger jiro mar walba uu safety-ga amaanka uu yar yahana wuxuu qasbaa in energy la heli karaayo okay energy markii la raadinayana asiga waxa u fudud marka energy-ga sokorta ah u fudud inuu adigu kuugu badbaadiyo meesha waxa ka baxaya kanfaadka marka okay jirka laba energy isticmaala energy-gan sokorta damoor la isticmaalo kanfaadka waa keed taabanaysa malahan cortisol hormoonkana hadduu active noqdo kan sokorta doorbida mararka qaar xataa waxaa laga yaabaa murqaha intuu baabi'iyo inuu energy-gaas ka dhigo oo kana faraha laga qaado weligiisna uu meeshiisa ku yaalo cidna aysan isticmaalin waana sababta inta badan aad u arkayso in xitaa 24 saacadood cuntada aad iska dhaafto jirka kale uu ka dhamaanayo laakiin caloosha aysan meesha uga leexanaynin waad ku qasbantaa marka muxuu ahay cortisol hormoonkan inaad mar walbo xakamayso socdaa sameyn kartaa neefsashada hadda ku soo sheegaa sameyn kartaa quweysaa sameyn kartaa oo dabcan habeenkii oo kale waxaa la qaataa quweys yar oo biyo khandaca dabcan habeenkii biyaha kulula fiican kuleel markaan ku dhahaynay zaa'id ma biyaha caadiga khandaca fiican biyaha qabow suuxiye fiican yihiin isku day inaad systemkaaga dejiso waad arkaysaa faadka asaa iska dhalaalayo bal commentiga nagula wadaag cuntooyinka anaga aan cunno ee Soomaalida cuntada adiga weaknesskaaga ah cuntada aadan iska dhaafi kareenin baasto miya canjeero miya bariis miya ma sokorta ma dhanaanka cusbada aad jeceshahay comment walbana waan akhrinaa insha Allah waxaan ku gabagabeynaa haddii aadan weli qayb ka noqon insha Allah taala ardayda inta badan jumco walbo aan newsletterka u soo dirno oo aan hal talo oo muhiim ah ay wiigas ku dhaqmaan aan siino qaybta description ku yaala newsletterkeeda ku soo bir jumco walbana waxaad helaysaa insha Allah taala hal talo oo free ah cuntay noqon kartaa cabide noqon kartaa exercise muhiim oo noqon karaa ama talo kale ku anfacaysa waxaan ku gabagabeynaa 7 beri muxuu ahay diet-ka free aan hadaan la degin sidoo kale description-ka commentiga maaha description-ku yaala way ku qoran tahay 7 beri oo quraac la dego walaalka ku safriye channel-ka daawo ku cusub subscribe. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.